waxaan booqday galbeedka Australia magaalada Perth oo ah halka dalkan Australia laga soo bilaabo marka qaarad ahaan la soo wajaho. halkaas waxaa ku nool siyaasi rugcada ah waa nin u soo shaqeeyay dalka Soomaaliya dawladii rayidka iyo tii militarigaba. Cusmaan Maxamed Jeele waxa uu kamid ahaa saraakiishii xoogga dalka Soomaaliyeed waxana uu ahaa shakhsi dalka u soo shaqeeyay. waxaan ku booqday gurigiisa oo ku yaala magaalada Perth ee galbeedka Australia. Cusmaan Jeele ayaa talooyin kala duwan u soo jeediyay dawladda qaybaheeda kala duwan. 6 sano ka hor ayay ahayd markii qaliin dhanka dhuunta ah lagu sameeyay isagoo xilligan afkaan ka hadli karin. inta badan dabcan su'aalaha markii aan weydiiyo qaabku ugu jawaabo waxa uu isticmaalaa iPad-kan ayaa waxa uu yahay aalada uu adeegsado dhanka hadal celiska. waxa ugu horeyn aan weydiiyay nidaamka federalismka dalka lagu soo dabaalay sida uu arko. aragtidayda ku saabsan nidaamka federalismka horey ayaan u sheegay 2004 markii lagu shirayay Kenya anigoo ku tilmaamay buu yiri inaanu Soomaaliya sinna ugu habooneyn waxyaabaha kalifana in la qaato aanay ka jirin Soomaaliya haddii la qaatana ay noqonayso fawda la sharciyeynayo oo dalal kale ay garwadeen ka yihiin keeni doontana si kala qaybin shacabka Soomaaliyeed oo horey u duufsaday kala qaybsanaan qabyaaladeed oo aan loo baahnayn maxaa yeelay shacabka Soomaaliyeed waxa uu dhan yahay waxyaabaha ummad mideeya haddii ay tahay wada dhalasho luuqad diin dhaqan iyo himilo oo ay wada rabaan Soomaali xur wada ah oo midaysan. haddana sidii ayaan weli u arkaa oo waaba muuqanaysaa ifafaalihii inay soo ifbaxeen waxyaabihii aan ka baqayay. maadaama federaalkii la qaatay waxa uu talooyin u soo jeediyay dawladda dhexe maamul goboleedyada iyo baarlamaanka Soomaaliyeed. ugu horeyn dawladda dhexe ee federaalka inkastoo ay ku hareersan yihiin dhibaatooyin gudaha iyo kuwa dibaddaba waxaan kula talinayaa buu yiri inay kordhisaa dadaalkeeda dhan kasta sida ammaanka siyaasad iyo wacyigelin shacabka ku baraarujinta inuu qayb ku leeyahay soo celinta nidaamka iyo nabadgelyada xasiloonida dalka la'aantiisuna aanay waxba hagaagin. dhanka kale waa inay tusisaa madax goboleedyada xuduudooda siyaasadeed oo aanay noqon gacan ku gabad isla markaana ay iyadu qabataa waxyaabaha ku kalifa madax goboleedyada inay dibadda u farabaxsadaan oo ay uga baahan yihiin. baarlamaanka federaalka isagana waxa aan kula talinayaa buu yiri inuu noqdo garsoore caadil ah oo u hiil qaada una horseeda danta dadweynaha ogolaadana in dastuurka dib u eegis lagu sameeyo oo laga bedelo meelihii bedelaada u baahnaa isla markaana uu xakameeyo ee u aqal celiyo qolyowga diidan in laba soo hadal qaado wax ka bedelid kuna qanciyaan inay dantoodu ku jirto wixii ummadda oo idil uu dan u ah. ugu dambeynna waxa uu soo dhaweeyay shirarka ka socda magaalada Cadaada iyo magaalada Beledweyne ee la doonayo in maamul loogu soo dhiso gobolada dhexe iyo waliba shirka dib u heshiisiinta Hiiraan ka furmay beelaha dirarsan lagu heshiiyo laguna dhisi doono maamul u gaar ah Hiiraan. dhanka Somalilandna waxa uu sheegay inuu aad ugu hambalyeeyo nabadda iyo horumarka ay gaareen. waxa dhanka kale uu ku amaanay Somaliland xisbiyada mucaaradka iyo dawladda heshiiskii ay ku gaareen in doorashooyinka ay qabsoomaan. Cusmaan Maxamed Jeele waxa uu ii sheegay dharaar walba inuu halkan fariisto una fiiriyo xaaladda dalka Soomaaliya waxyaabaha laga qoray dalka gudihiisa iyo dalka dibadiisaba. waxa uu ku booriyay maamulka gobolka Banaadir inay u tafaxiitaan dib u soo celinta adeega danyarta ee ay ku leeyihiin gobolka Banaadir isagoo tusaale u soo qaatay xilligii 70-aadkii markii uu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir waxyaabihii uu ku soo dabaalay oo maanta weli muuqda raadkooda. ugu dambeynna waxaa dhammaantood ugu duceynayaa buu yiri oo Ilaahay uga baryayaa inuu tawfiiqda waafajiyo naftoodana ka badbaadiyo aafooyinka dhacaya kuna guuleeyo inay noqdaan kuwa shacabka Soomaaliyeed gaarsiiya xasilooni iyo nabadgelyo iyo horumar. alxamdulillahi alladhi anzala ala abdi kitaba. Cusmaan Maxamed Jeele daadiisu waa ku dhawaad 80 sano caruurtiisa midka ugu yarna waa 7 jir. Ibrahim Umar Baafe wararka Universal magaalada Perth galbeedka Australia.